مبلغ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بما هذا سكاله وحان رواعنا الماشان لو قضب كهالله ودنت الصوماليات يدنت إذا انت بقى وحان شوقاه تقبل الجربهاري قول كجده ماكو غورس مقع ايقانا وعالا دا حسن حسن نور dadku waxay ii yaqaanaan indho guduud waxaan dhex joogaa beertaydii waxaan maqlay maalin dhaweyd aniga beerta ayaan tabcanahayay weligay iyo allahay beertaanna waan leeyahay beer kale oo cabbaar ii jirto oo magaalada ka baxsanna waan leeyahay beerahaygaan waxaana ku tabcanahayana ilmahaygaan wax ku baranahay waxaa la sameeyey maalin dhawey carruurtii ordaysa saddex wiil baa dugsiga sare ii dhigata oo garbahaarey saddexdooda midba meel baan u yeeray xanaanada digaaga mid baa qaabilsan oo xaataa markuu digaaga u yeerahayo aan anigu aqooninoo digaagu hadalkiisa yaqaanaada u yimaada konton xabbay marahayaan beerahana mid baa qaabilsan aan rabay wasaaradda beeraha inaan dhaho ku biir hadhow kana xanaanada xoolaha iyo aan dhaho ku biir iyo xanaanada digaaga sidaas baan horta aniga hadafkaygu ahaa waxaad arkaysaa anigu curyaan baana labada lugoodba way go-an yihiin wakuwa soomaalihi labadayda lugoodba waa go-an yihiin wataa labadayda lugoodba anoo saasa yaan laba xaas leeh anoo saasa yaan waxaan damcay inaana isliidin oo geed eber aanan noqon oo aanan dad gacanta u hoorsan oo aanan baalka la yidhaahdo aanan wax kale aana gelin oo aanan masaajidda inta maryaha dhigto magaalana aana bilaabin ee anigu dadka cagaha leh ama miyirka qaba ama maskaxda leh aan la tartamo oo weliba ka dheereeyo yaan go'aansaday waxaana abaabushay oo weligay abaabulanayay beerahaas ayaga ah baanan wax ku cunayay ilmahana wax ku baran jirin saddex baa hadda dugsiga sare ku jirta school fee waxaa laga qaadaa min $20 beerahaygaan yaan kala baxaayay iyo wixii aan abuurto waxaa wiilashii ordaya maalin dhawey waa la yaabe yaa ii yimid aabbo beeraha aad sheegayso aan ku dilaysay waxaaba la yidhi waxaa laga qaadahayaa cudur galaydii raashinkii sarreenkii cudur baaba laga qaadaya annagana beeraha iyo dhulka tabcadaadna lahayd wax cudur laga qaadaya nagu dilin naga daaway ku bilaabeen anigii waa qoslay oo waa been baan idhi waxaana u sheegay ilaa weligeed in beere la abuuranahayay qof la yihi kaankaday ku rideen qof la yihi jiray ku rideen midna lama arag waxaan u malaynayaa waxaana kala dagaalamahaya inaanu wax abuuranno oo wax tabcanno oo gamcaha isa saaranno oo derbiyada fadhino taasaa dadku ay rabaan waxaa la yaab leh ninka soomaaliga ah oo dhahaya assessment baan soo sameeyey oo dhahaya WFP u shaqeeya oo dhahaya raashinka Soomaaliya ka baxo waa cudur baa laga hela ninkaasu cadow weeye waxaan doonayaa inuu iska daayo dhibaatada noocaas dadku inay wax abuurtaan dhalinyarada lagu baraarujiyo dhulkooda ay tabcadaan waa tii la dhihi jiray nolol waxay ku jirtaa dhulka ee dhulka tabcada waa tii la dhihi jiray lagu heesi jiray sida ayaga waxba ma bedelin cudurna waligana kama aanan qaadin ilaa ka fac beeraha la tabcanayay beeraha ayaan la beexiri awal baa xoolihina laka beexiray firtifaali bay qabaan baa la yidhi beerihii baa hadda la beexirahayaa baddana waxaa la dhihi doonaa kalluunku waa cudur socda yaa la bilaaban doonta annaga waxaas ma raalli kama nihin dawladduna waxaas inay ka jawaabtaan la rabaa wasiirka beeraha anugu hadda ma dhegaysan laakiin wuu hadlaa laygu yidhi waxaan rabaa si fiican inaad uga jawaabtid oo kuwa dhuuni qaatayaasha oo xoogaaga salariga Soomaaliya oo siisanaya aad qabato oo tiraahdo assessment beena sheeginina ilaahayna ay ka baqaan anigu saasaan soo jeedinayaa waxaa intaas ii dheer laba lugood baa ay go'anta aniga intaasna waxbaan dhaqanahayo tabcanahayo abuuranahayo waxaynahay waana ku faa'iid dadka derbiyada jiifa iyo dadka xoogooda qaba laxaadkoodii qaba iyo kuwa curyaamiinta yeesan magana la bilaabin oo dad gacanta u hoorsanin inay wax tabcadaan dhulka dhagu waa cusub wax walba ka baxaya yaa la rabaa aayar intaan ma qaataan yaanbala tabcada wax aniga intaan nawaayi baxaysaa oo dadka gurigayga ka baxaysa beer kalena waa ay baxaysaa way ugu filanta hadda waa la aragtaa sabuuladeedu waa soo tuurta wataa way soo tuur sabuuladii waxaa la rabaa dadku inay wax tabcadaan asaagood ay gaaraan gacan hoorsi ay ka baxaan
Soomaaliya ay u shaqeeyaan oo ka shaqeysaa waxaan waa galay waxaan waa digir waxaan soo dhan baabaxay dadku waxa tabcadeen duryaaniinta waxaan leeyahay maalin walba magana la ku hayninine ninkii indhala waa indhalaayahay midkii indhaqabow labada lugood baa aniga go'meel lagu fariisan midkii indhaqabow wax tabco oo wax beero oo wax siyaadso oo hay'aduhu ay hana kaalmeeyaan hadhaad waxaan ku soo gabagabeynayaa warkay wixii maqlow ama dawladda joog ama dalka joog una kale idinka rabo waxaan rabaa wasaaradda beeraha ama ha ahaad ama qurba joogta ha ahaad baa mootadan xunta ah oo lagu qaato balka iyo raashinka iyo baalka saddexda lugood oo doonta middaas in la ii galo una cidna kama rabo ilaahay baan ka rabaa aniguna waa xoog baan leeyahay weli carruurtaydana waan ku ababiye waa shaqaysanaynaa beeraha naga falanaynaa hadda beertan webi maaha webi kama maaha waa agablo waa gurigayga agtiisa gurigayga waad aragtaan waxaan rabaa beer kalena xagga ku taalaado cabaar bay ii jirtaa ma gaaro waa la ogolaa dameer baa iga dhintay dameerkii iga dhintay mootadaasaa ii daran dameerkaasaan wal ku shaqayn jiray meel walba ku aadi jiray inaan shaqaystaan rabaa qofna aanan baryin soomaaliyana igu dayato waxaan digid ah waxaan galay qof aan abuuran karin male qof iga xoog xunna male ninkii indhala waa iga xoog xun oo labada indhood baa anigu intaasaan warkayga kusoo gabagabaynayaa Soomaali baan warka gaarsiinayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka beerahana inuu soo waco waa jeclaan lahaa teleefankaygu waa 5 hal 5 8 4 3 hal 5 hal 5 8 4 3 hal weeye teleefankaygu aanu ka wada hadalno anigu saana wax u abuuranaya waana lugada wixii nagu siyaadi kale nagu siyaadi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh